daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub suuqa kala iibsiga ciyaartoyda inagoona ku eegi doona naadiyada kala duwan ee qaaradda Yurub iyo qaabka ay ugu dukaamaysanayaan suuqa kala iibsiga. aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa heshiis la gaartay kooxda kubadda cagta ee Leeds United. heshiiskani oo kooxda kubadda cagta Manchester City ay kula soo wareegayso ciyaaryahanka khadka dhexe kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leeds United ee la yiraahdo Calvin Phillips. heshiiska ayaa ku kacaya inta u dhaxaysa 45 ilaa 50 milyan oo pound. Man City ayaa xidigan la soo wareegaysa. xidigan ayaa koox badan doondoonayeen maadaama qaab ciyaareedkiisa aad u wanaagsan yahay una ciyaara kooxda Leeds United. xidigan ayaa qaab ciyaareedkii wuxuu soo jiitay koox aad u far badan. xidigan ayaa ah ciyaaryahan u ciyaara xulka kubadda cagta ee Ingiriiska asoo dhowr mar kulan badan u saftay. sida ay warinayaan wargeysyada ka soo baxa dalka Ingiriiska, Cristiano Ronaldo ayaa ku sii nagaa doona ligada Old Trafford. Cristiano Ronaldo ayaa ka careysan naadiga maadaama suuq kala iibsiga si active aysan ugu jirin. sidoo kale Bayern Munich ayaa beenisay in Cristiano Ronaldo ay doonayaan in wararka suuq kala iibsiga ku jira ee sheegaya inay doonayaan Cristiano Ronaldo aysan ahayn kuwa sax ah. Cristiano Ronaldo ayaa la filayaa in xil ciyaareed soo socdo ku sii nagaado ligada Old Trafford. weeraryahanka ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool David Origi ayaa si rasmi ah ugu biiri doona kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Wayne Rooney xidiga hore ee kooxda Manchester United ayaa isaga tagay shaqada tababarnimo ee kooxda Derby County isagoo u rajeeyay kooxdaasi nasiib wacan. Wayne Rooney ayaa go'aansaday inuu isaga tago shaqadan maadaama sida la warinayo ciyaaryahanka uusan ku qancin naadiga waxay qorsheynayso iyo qaabka ay doonayso inay xil ciyaareedkan ciyaartoy u soo iibsato. kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa sheegtay inay doonayaan inay sii haystaan ciyaaryahanka loo magacaabo Serge Gnabry. Gnabry ayaa heshiiskiisa ka dhiman yahay 1 sano, balse waxay sheegeen haddii uu ku faraxsan yahay ciyaaryahan Serge Gnabry inuu isaga tago naadiga ay u heli doonaan mushkiladda taagan xal. sidaas ay darteedna ay sameyn doonaan wax alaala wixii qof walbaahi uu ku faraxsan yahay oo micnaheedu tahay in ciyaaryahanka hadduu doonayo inuu baxo inay fasixi doonaan aysan kusii dhigi doonin. ciyaaryahankan ayaa sanadkan sii socda hadduu sii joogo kooxda kubadda cagta Bayern Munich heshiisna uusan u saxiixin wuxuu kaga tegi doonaa si xur ah. ciyaaryahankan ayaa lagu qiimeeyaa lacag u dhaxaysa 30 milyan ilaa 40 milyan oo pound. Arsenal ayaa kamid ah naadiyada daneynaya inay la soo wareegaan Serge Gnabry. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana ka muuqan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xilli ciyaareedkan, balse waxaa la sheegayaa inay daneynayaan ciyaartoy dhowr ah oo ka mid yahay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Manchester City ee Raheem Sterling iyo ciyaaryahan kale oo ciyaara kooxda Leeds United ee la yiraahdo Rafinha. dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa wada hadal kula jirta kooxda kubadda cagta Manchester City. khabiirka ka faallooda sportska ee la yiraahdo Fabrizio Romano ayaa sheegay in ay wada hadallada kooxda Arsenal iyo kooxda Manchester City ay marayaan gabagabo lana filayo ciyaaryahankaasi inay kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Man City heshiis gaaraan labada maalin ee soo socota. Gabriel Jesus ayaa aad ugu dhow inuu u saxiixdo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. sidoo kale Arsenal ayaa wada hadal ku jirta kooxda Leeds United iyadoo doonaysa ciyaaryahanka ku ciyaara ee la yiraahdo Rafinha. Arsenal ayaa haddana la sheegaya inay wada hadal kale kula jirto kooxda Ajax oo la xiriirta ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaara kooxda Ajax ee la yiraahdo Lisandro Martinez. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa si fiican kaga muuqata suuq kala iibsiga marka loo fiirsho naadiyada kale ee horyaalka Ingiriiska ee dhigooda ah sida kooxda Man United, kooxda Chelsea iyo kooxda Tottenham. Arsenal ayaa saddexdan ciyaartoy rajeynaysa inay la soo wareegato inta aan la gaarin horyaalka Ingiriiska. Arsenal ayaa dhowr mar horyaaladii hore waxay ku bilaabatay iyadoona inta badan u muuqanin inay diyaar u yihiin ama ay soo iibsanin xidigaha ay doonayeen. marka horyaalka uu furmo kulamada u horeeya ay ku ciyaari jirtay iyadoo ciyaartoyda qaar ee suuqa iibsiga aysan la soo wareegin ee wada hadal kula jirto. balse Arsenal ayaa daneynaysa sanadkan in ay ciyaartoydooda diyaar u noqdaan horyaalka markuu bilowdo. barnaamijkii maxaa ka cusub suuqa kala iibsiga ciyaartoydana waa naga intaa. waa ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. fadlan haddii aadan subscribe saar, like saar videoga si uu u gaaro asxaab aad u fara badan. aad baad u mahadsantahay la socodka barnaamijka.